أنا waxaan u maleysaa inaan hadda soo muslimay marka maalin barqa ah ay soonka tahay loo maleynaa leeyahay qadriga inay noqon karto markaan quraanka akhrinayo runta ayaa gubanaysa oo mooda basbaaskaas oo kale ma baraarugsanin اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد تحليل وبايدي بيها waxyaabaha aan marteeda ka mid tahay oo soo socdo inaan ka sheekeeyo bismillah wallah bismillah marka istighfaartii baan badiyay markan gabadha Suudaanida ku xirmay waxay ku talisay inaan la istighfaarsado albaqara la akhriyo khidmaadka quraanka la akhriyo albaqara la akhriyo iyo la istahsiniyo quraanka suuratul baqara marka akhrinaya ani waxaan sameynayay adkaar sabax wax masaa akhrinaya ma waan aqaan marka la yareyn baan la baray laakiin I don't know muhiimadda ay leedahay iyo faa'iidada leedahay ma ogeyn so this time around quraanka marka akhrinayo before al-baqara because al-baqara is a very strong surah wa inaad أذكار الصباح يا أذكار المساء كنت داشة وأنا تحليش القرآن كمان أخرين لما يسيت التحليل كنت فتي قولي وأنا كبوفسة هذه وأنا كبوفسة ما هي وأنا كبوفسة يا البقرة كمان أخرين سيت أخرين يسيت بس سو قرآن البقرة وأنا أشيطة قولي إيو رقية نوعنا أشيطة that's what I did mark also وأنا كوكو استبيها التحليش ده why did anybody tell us waxyaabahan inay muhiim u tahay caafimaadkeena inay muhiim u tahay tadhiirinteena inay muhiim u tahay muxuu qofna noo bari waayo subxaanallahi alcadiim maxaa u arag ogaan weyne beforena maxay culimada u 9 jeer hoos uga xariijin waayeen muhiimadda ay leedahay caafimaadka muhiimadda ay u leedahay nolosha iyo akhrintan la gaarin adduunka muhiimadda ay u leedahay istighfaarta iyo quraan akhriska iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa muhiimadda ay u leedahay iyo why maxaysan u jirin culimada maxaysan ugu jirin culimo ku dhahaysa istighfaarso waxaad kelaysaa A iyo B iyo C iyo D istighfaarso cibaadada kugu fududaanaysa istighfaarso salaada kugu fududaanaysa istighfaarso baari baad ku noqonaysaa istighfaarso dadka ilaahay oo dhan baa kugu jeclaanaya istighfaarso adduunyadaad ku tufaysaa adduunyada waxay kula noqonaysaa wax xabay yahay istighfaarso ya maxay u jiri waayeen Allahu akbar ana waxaan u maleysaa inaan hadda soo muslimay waxaan daawan jiray revert stories dad soo muslimay markaasaan la qiiroon jiray markaasaan Allahu akbar masha Allah beautiful they because adigu muslimnima lagu dhalay oo ma taqaanay nicmadeeda muslimnimada laakiin aniga that is I feel like inaan saas dareemay markaan hadda Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo celiyay waxaan dareemay sidii qof hadda shahaadada loo qabtay oo kala soo ashahaaday معاك iyo farxadda iyo la ubaali inaana kala jeclayn baba isku keenid wixii baabuurkii aan ka sheekeynay bilaw video wax staa wudi aan saarna no I am in with qudradda Ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo fadligiisa ana controlkiisa haya I speed sax ah ayaan ku wada speed calm ah ayaan ku wada ya la hawla wala quwwata illa billah Allahu akbar talking about gaari waxaan barnaa adeerkay horta fadli Ilaahay ka sugo Ilaahay tacaala fadligiisa adeerkay baa la last casharada ugu dambeeyay adeerkay baa ii fariistay I'm sure awu ila yaabay because not many people ayaa first hand u dareemi kara anxiety-ga iyo heerkeeda wuxuu isdhihi jiray what in the world baqdinta intaa la eqooma
traffic qof noocan ma waxaa laga yaabaa inaa xoogaa lagu tilmaami karo inaan yara dhiiranayo, laakiinse anxiety markay kaa farbadato is another level. So what happened was, for the first time in 14 years, for the first time in 14 years, waxaan dareemay wow, subxaan allahi alcadiim. anxiety gone. anxiety marka ku dhaha waxaan helaya panic attacks like nobody's business. gone. So inaad adduunka kala jeclayn, caafimaad iyo risqi iyo waxa barnaamijyada iyo qorshaha iyo nolosha iyo waxaan kala wato mashaariica ku jiray hoolaan watay oo just like fuday alxamdulillahi rabbil caalamiin. At the same time Ramadan soo galay waxay kadib Ramadankii alxamdulillahi rabbil caalamiin for the first time again in 13 years, 13 Ramadan ayaa mid walba intaas soomo because of xanuunka, because I think something like inay tahay diabetes oo kale igu kacay markaas soo isra ayaan on bilaaban joojiya. Oohin I remember Ramadan walba waxaan jecel ilaahayo kan ka dhig Ramadankayga ilaahayo kan ka dhig Ramadankayga soomo ilaahayo kan ka dhig maanta soomo. Migraines ka inay ka sheekeen migraines caadi ah ayaan haystay markaan soomo. migraine intuu igu soo doodo maanta ama duwada subaxda 12 markii la gaaro aykaan ma soo wada karin. ilaahay ba marka u sujuuday Ramadaanka waxaan xasuustaa barqay ahayd. ilaahay baan baryay waxaan ku leeyahay ilaahayo ii fududay soonka, ilaahay ii fududay. So ayaam cudurka iyo maalmahan safray waxaas markii laga reebo soonkii ugu horeeyay oo waxa waaye la dhihi karo aan soomay in 13 years. soonkii hadda la soo dhaafay. ولله الفضل والمنة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Yeah. So another point oo kale muhiim ah waxay ahayd ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryay. ilaahay marka wuxuu ii fududeeyay in aan wax walba oo aan isleeyahay ama ka fikirayo oo aan ku tamaninayo ama aan ka walwalsanahay ama aan inaan xalkeedu i tuso through ama video ii soo baxay ama aayad quraan oo akhrinayo ama alashaan wax inuu ilaahay igu xalliyo arrinteydii aan ka fikirayay ama arrinta aan ku fikirayay ama aan ka walwalsanaa. allah mustacaan marka waxaa dhacday ilaahay baa waxaan ka baryay in haddii tusaale ahaan marka dadka qaar waxay dhahayaan marka waxyaabahan gabadhaas suudaaniyadda ah iyo maxamed xijaazi laftirka labadooda waxay dhaheen probably jirka haddaad isku aragto waxaas laga yaabaa inay tahay ama il ama xaasidnimo ama waxaan ku dhahay sixir ama whatever. So aniga ma aqaanin, laakiin I said ma aqaanin waxaan acraadoodan ma aqaanin sayniina ma aqaanin ma isku weerin jirin. marka soonkii maxaan sameeyey waan baryay ilaahay subxaana watacaala waan baryay. markaas waxaan sameynayaa taraawiixdan tukanayaa. taraawiixda waxaan isku dayay inaan ku tukado suuratul baqara marka kuwaan maalintii akhriyay mooyaane inta kale waxaan isku dayay suuratul baqara inaan ku tukado taraawiixda iyo quraanka intiisa kale at least inaan one suuratul baqara ku tukado ama at least half suuratul baqara inteeda badan aan ku tukado quraanka intiisa kale aan ku tukado taraawiixda gurigaan ku tukado. also waxaan sameeyey istighfaarteeda waan wadaa bas saliga nabi alayhi salaatu wasalaam waan wadaa. marka maalin barqa ah ay soonka tahay loo malinaya laylatul qadriga inay noqon karto. ya waxaan ilaahay ka baryay inuu ilaahay subxaana watacaala haddii ay jiraan dee wax uun dhib ah oo
shaydaani ah ama sixir ama il ama waxaasoo kale dib jiraan inuu ilaahi subxaana watacaala ii caddeeyo baa ilaah ka baryay. So waxaan sameeyey ilaahay wuxuu igu ilhaamiyey marka in aan akhristo ruqyadii baa waxaan sameeyey google baa lagu qoray ruqya sharciya oo saxda ah. So ruqya sharciyadii aan soo baxsaday waan akhristay. Markaan akhristay ayaan jirkeyga wada marmariyey. As I was reading, subhanallah alazim, as I was reading ruqyadii carabkeyga iyo afkeyga ayaa waxaan ka dareemay inay bisbaas oo kale ay tahay, kuleel bisbaas oo kale. 2 waxaan dareemay in jirka oo dhan uu bisbaaskaas oo kale furuurac horta jirka waan iska sii akhristay. And then waxaan siri yes, that should be a sign, that must be a sign that there's waxbaa jiro. Also markaan qur-aanka akhrinayo dhuunta ayaa ii gubanaysa oo mooda basbaaskaas oo kale, iyo sidee banaan qur-aanka markaa suuratu baqara akhrinayo waan saxanaya, mid kale waan saxanaya, waxaan ku saxanaya waxyaabahaas. Marka waxaan siri waxa waaye there is something I don't know wuxuu yahay. ilaahay subxaana watacaala naga najeeyo shaydaanka. Marka waxaa dhacday in aan habeenkii markaan sii seexanayay habeenada kamid ah soonka lagu jiray weli aan wax xab oo kale ah baan soo matagay. inta soo kala soo cararay like sorry about the TMI jiray ma aha matag laakiin waa xab iyo wax isjiidanayo oo kala iloontayda kasoo matagay. waxaa marka loo google garay marka of course adeed aan loo google. So it says waxa waaye caraadi kamid tahay ka soo baxay alxamdulillah rabbil caalamiin. waan sii waday marka waan sii waday safaartii albaqaradii qur-aankii khatamaadkii wixii aan sii waday. waxaa dhici jirtay markaan iska daayo hadabadii soo inistaaban markaan iska daayo adkaarta subaxdii adkaarta galabta waxaa dhacayso in aan dareemo waxyaabaha weerarka shaydaaneedka baan arki jiray more. waxaana ka mid ah xanuunkan shaqshaqani shanbadan ku sheegi jiray xanuunka madax xanuunka confusionka inuu igu batay baan dareemo oo ka yara baqay marka. So maxaa waaye cilaajkii in aan ama maxaa waaye dawadeeda taasna in aad sii wadid. The thing is markaa aragtid wixii inaa ka wax kiciyaan inaad sii wadid. waan sii waday marka. haddaba the sweet point ani waxay ii noqotay inaan isku badinin albaqradan aan akhrinin like 3 jeer 5 jeer 4 jeer aan akhrinin aan akhriyo subaxdiina mar galabtiina mar istighfaarteedana aan ka dhigto like limitka aan ka dhigto 30 haya limitka ma aan ka dhigto alashaan as much as I can laakiin se aan ka yareyn 12 20 around that. marka waxay ii samaysaa in aan anxiety goon irsaaqada ilaahi subxaana watacaala waasac weeyaan maasha allah tacaala. never lacag la-aan ma jirto, never ever. alxamdulilah rabbil caalamiin. wax alle waxaan u baahano alxamdulilah rabbil caalamiin waa haysanaa, iyo wax waliba aan dadka ilaahi siisayno. ka ugu wanaagsan waxaa waaye farxad iyo deganaansho iyo qanaacad iyo baqdin la-aan iyo cibaadada ilaahay oo aan u cararaysid iyo dembiga ood ka baqaysid ood ka cararaysid ka fogaanaysid. waxaan helay caafimaad, irsaaqad ilaahay subxaana watacaala hakada lacag la-aan ma igu dhacdo alxamdulilah rabbil caalamiin. meelo aan filayo meelo aan filayninba ka imaadaan subxaana allahi alcadiim. iyo in ilaahay subxaana watacaala cibaadadiisa uu jeclaysiiyo ugu cararsiiyo iyo in aan dembiga ka fogaado iskaga cararo. there is one more ila haddeertaan iga baxday laakiinse those are faa'iidooyinka caafimaad iyo adduunyadii oo aan kala jeclayn iyo farxad. it doesn't matter wixii dhacaya ha dhaco. I'm not saying like
all the time waan duulaya bini aadam baa just like you guys so marmar mowqifyo kula soo gudbayaan aad ka walwashid mowqifyo waxaad ka naxdid mowqifyo waxay maalin dhawaad waxaa laga soo sheegay maalin dhawaadaan sii fogeyn week meelahaas ka hor ah akhbaar walba oo bini aadam ah uu ka cabsan karo ama ka baqi karo ama ka walwali karo ama ka naxi karo ama dhibsan karo saasay tahay yes waan dhibsaday oo waan allahuma salli wa sallim barik calaa sayidina maxamed way dhaawacday ama way damaqday laakiinse sidaan awal noqon lahaa ya sidaan noqon lahaa fadlu lillahi ilaah subxaana watacaala dartiis ay ku timidana arrintaas kula dhici lahayd walwal iyo murugo iyo igtiaab iyo depression iyo adduunye nac iyo shallayto iyo waxaas meesha ula dhici lahayd qadar allah ma shaa facal and life goes on ya alxamdulilahi rabbil caalamiin alxamdulilahi rabbil caalamiin alxamdulilahi rabbil caalamiin qanaacad zaa'id ah والحمد لله رب العالمين الحمد لله هاي iyo marka khulaasada waxa waaye rajo way jirtaa dhalinyaro marka si ay idinku soo gaabato dariiqa oo aadan 40 iyo markaad gaartid ama aad dhaaftid aadan u dhigin oh my goodness maxaa halkeen ka bilaabay maxaan sameeyaa iyo halkay sheekayska qaban lahayd haddaba ku dadaal ilaahi subxaana watacaala horta harkiisa dadka horsada ugu horeeya waxaa ka mid ah dhalinyaro ya ilaahi subxaana watacaala bartay oo taqaano oo caabida ilaah ka baqda qof dhalinyaro ah so iska ilaali marka iska ilaali ha fududaysanin inaa tiraahdo oo dhalinyaro ah insha allah soo toobadkeeni doona oo iska dhageysatay heesahaaga oo iska I'm not saying heesaha waa dembi maaha iyo waxaas laakiin all waxaa waa contextual waa inay tahay waa inay ma aha 90% of your time ama oo waxaa dhageysanaysid ay ahaadaan hees maantana hees aad hees ya way ka nuurkay kaa daahin kartaa ya iyo filimada iyo musalsalada iyo waxaad markaan dhahayana I have been there I have done that show iyo film iyo noocuu doona ha ahaadee ya waqti lumis ka number 1 waqti lumis marka la dhahay waxaan dhihi jirnaa dembi maaha hadda haa laakiin waqti kaa luminaya ana wax xun ma daawadid wax fiican wax caayo iska daawanay ya wax uu kusu ishaadu caadi uga dhigaya waxa xun baa marka dambe waxay kula noqonayaan caadi waxa xun baa caadi kula noqonaya because waqtigaagii iyo dhan baa waxaa ku bixinaysaa wax aan ilaahay xuskiisa ahayn buu kaaga buuxoyaa so waqtigaaga waa waxyaabaha la isweydiinaya mid kamid ah qiyaamaha waqtigaa waxaa kusoo qabatay so inaad iska ilaalisid mishwaarka ku gaabinaya markaan kugu baray ku qabtay allahumma salli wa sallim barak so haddaad tidhaahdid the sweet point waxaa waaye amaba the xalka sixriga ah waxaa waaye in aad haddaad rabtid inaad si dhaqso ah like shortcutka waxaa waaye inaad dembiga iska ilaalisid oo dembigana uu ka koob yahay dulmiga dadka iyo dembiga adiga iyo ilaahi subxaana watacaala kaliya markaad tihiin aad samaysid oo dad kale ay kula ogeyn iyo dadka ilaahay inaad dulmidid iyo inaa allahuma salli wa sallim barik calaa sayidina maxamed markaa iska ilaalisid dembiga inaa ilaahi subxaana watacaala wuxuu ku faray aad samaysid oo ah salaada horta ay ka koob tahay salaada ilaalisid oo dibdhig salaada ilaalisid markaan dhahayna waxaa waaye ma dhahay kaliya inaad tukatid oo shantaas salaado tukatid ma aha inaad waqtigeeda ku tukatid qaamu salaad waa in salaada la toosiyo la saxo way imanaysaa salaadaada way ku toosi haddii aad rabitaankeeda intaa la imaatid aad tiraahdo waan tukan maalin walba at least inaga tegayso marka dambe waxay imaanaysa inaad toosisid marka dambe waxay imaanaysa sunnaha inaad raadisid marka dambe waxay imaanaysa all of that so ka kalena waxaa waaye inaa istikfaarta waxaasoo dhanna waxaa ka wada horeyso haddii waxaas aad samayn karin bal horta koo marka istikfaarso ilaah subxana wataala marka u istikfaarsatid ilaah dambi dhaaf weydiisatid salliga nabiga caleyhi salaatu wasalaamna wuxuu leeyahay benefits badan ay ka mid tahay barako waqti salliga nabiga caleyhi salaatu wasalaam horta markaan indhahay waxaan tukaday maalintii laylatul qadarka loo malaynayay ama maalmaha laylatul qadarka soonka
marka la ragcado tukaday oon ilaahay baryayay maalintaas barqadeedii salaad ibraahimiya ayaan 100 jeer nabiga calaysalaatu wasalaam nabiga calaysalaatu wasalaam salligiisa marka aan akhriyo waxyaabaha badan inta badan ka faa'iido waxa waaye maalintayda ilaahay subxaanahu wa ta'aala protection buu igu siiyay ilaahay subxaanahu wa ta'aala salliga nabiga calaysalaatu wasalaam waxaan yiri tukfa hammak wa yaghfir dhanbak hamigayga waxa waaye ilaahay subxaanahu wa ta'aala wadan fitnaysan baan joognaa inuu ilaahay nagu xifdiyo ayaa walwalkayga ugu weyn carruurtayda xifdiyo aniga xifdiyo shartooda ilaahay naga haayo soo salliga nabiga calaysalaatu wasalaam azah ilaahay baan ku markaan ku saliyo waxaan u niyeystaa in ilaahay subxaanahu nagu xifdiyo in ilaahay faraj noogu furo soo taas mar walba waxay ii tahay wax daa'im ah oo aanan goonidiisa aan u tijaabinin laakiinse mar walbaba ii ah wax ii ah wardida so maalintaasna waxaan sameeyey 100 salaad ibraahimiya so and then as a result of it with all of the other things aan sameynayay waxaa dhacday in soonka ilaahay ii fududeeyey waxa ilaahay ii fududeeyey in aan arko acraadani waxaan aan isku arkay ilaahay ayaa taas farajkaas iigu furay so dardaarankii bay ahayd dhalinyarada haddaa aragtid marka dembiga cibaadada inuu ilaahay kuu fududeeyo ood xasilooni heshid oo aad irsaaqada ilaahay uu kuu badiyo oo ya istighfaartan kugu ogahay astaghfirullah alazim wa atuubu ilayhi astaghfirullah 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 astaghfirullah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.